السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada asxaabta. Cashirkan waxaan rabaa inaan ka hadalno WhatsApp iyo macnaha qaabka loogu daro iyo macnaha qaabka loo create gareeyo campaign oo aad u rabtid WhatsApp. Marka WhatsApp kuma soo diri doono sababtoo ah waxa waaye business account-kan cashiradkan ku dhex furay. Marka wax oo number ama ii sheeg oo u registeraysan ama ku xiran iyo pageska ku xiran uu leeyahay ma leh. So marka maadaama uuna leeyahay waxaan isku dayi doonaa insha Allah tacaala in aan ku connect gareeyo in ku dhaafo video kale aan raadiyo oo macnaha sida WhatsApp loogu soo daro page-kaaga iyo macnaha sida WhatsApp business loo soo degsado oo app-ka ah marka soo degsatidna kadib aad ku soo dirtid page-kaaga oo macnaha ka soo qaad Jaburon oo kale iyo WhatsApp-kaaga inaad isku soo dejisid bis intaas baa muhiim ah. intaasna macnaha waxaa ka heli kartaa meel kasta oo qof kasta ka hadlo oo YouTube-ka ka heli kartaa wax weyn maan sababtoo aniga aan u sameyn karin waxay tahay because waxaa riski galayo business account-ka kale ee numberkii iyo page-kii iyo waxa dhan ku wada jiraan. Marka hadda maadaama aan sameyn karin waxaan sameynaa haddii aad samaysatid video oo explain garanaya in raadinaa kadibna meeshaan kugu dhaafa insha Allah tacaala oo Soomaaliya. oo macnaha waxa u baahan tahay clear waxa waaye si aad WhatsApp business-ka app-ka ula soo degsan lahayd marka la soo degsatidna kadib aad isku xiri lahayd page-kaaga iyo business-kaas oo WhatsApp-ka ah. waxaa muhiim ah bis number-kaas markaas isticmaalaysid iyo telefoonka oo Facebook-kaas uu ka kacsan yahay oo macnaha oo Facebook aad isticmaalaysid uu ku xiran yahay app-ka ama browser isticmaal ama app-ka isticmaal oo telefoonka markaas aad isticmaalaysid iyo Facebook telefoonkaas ka dhex furan oo page-ka aad ka furtay iyo WhatsApp-ka meesha kala soo deganaysid WhatsApp business inay wax dhan is leeyihiin oo macnaha markaasna connection-ka oo macnaha easy ahaado qaabka isku connect gareysi kartidna waxa waaye business-ka markaad joogtid oo kale ayaa kadib business tools ku dhufanaysaa kadibna meeshaas ayaa iska dhijinaysaa kadibna wuu isku xirmaa markuu isku xirmo markaas waxaa haysataa qaabka markaas aad xayisiinta u create gare lahayd meeshaas kaga soo xiri lahaydna video oo saas u explain garana ana YouTube inta ka raadiyo in soo dhigaa insha Allah tacaala oo macnaha qaabka aad isku soo xiri lahayd bis ayaa u baahan tahay ayaa ka maqan meesha laakiin qaabka xayisiinta u create gare lahayd oo markaas kadibna aad u sameyn lahayd ayaan hadda sameynayna insha Allah tacaala. marka soo dhawaada waxaan ku dhufanayaa markaan create kadib marka create ku dhufo oo ku dhufto waxaan sameynaynaa traffic marka inuu traffic ahaado waa marabo la soco haddii aad engagement dooratid conversion dooratid waxyaabahan kale aad dooratid kuma shaqeyn doono marka traffic ku dhufo kadib magac u baxso so aniga hadda waxaan bixinaa WhatsApp conversion WhatsApp traffic aan u baxaa traffic si macnaha dhowtaan xasuusto so campaign-ka objective-ka waa traffic next so marka adset-ka magac u baxso hadda marka website aan ku dhaafeynaa because WhatsApp kuma xirno business account-kan koorsadaan ku dhex furnay oo macnaha ma ahan business account oo Facebook ay aaminsan yihiin oo kadib pageska ku xiran xataa kan oo kale markaa fiirisid Jaburon markaa fiirisid oo macnaha Jaburon waxaan ka create garayna meeshaan markaa fiirisid oo kale gudaha tagtid setting-ga ku dhufatid kadib meesha uu kasoo bixi lahay WhatsApp oo kale haddii xaggan aad fiirisid oo kale ma ku jiro WhatsApp-kii haddii aad soo laabatid oo aad fiirisid kan oo maxamed shayga ku qoran Maxamed Shaafici hadaa fiirisid oo kale pages haddii kana fiirisid Maxamed Shaaficigan oo hoos soo degatid setting-ka tagtid arkaysaa ku jira because Maxamed Shaafici wuxuu ka furan page-kan wuxuu ka furan Facebook kaloo ka furan yahay ma ka furno Facebook-kan kama dhex furno oo bis admin bis unbuu ka yahay Facebook-kan admin loo ka yahay bis oo macnaha waxaan u talagalay any questions oo qof weydiiyo kale inaan u jawaabo meeshaan quickly oo macnaha meelo kale Facebook kale aan ugu dul furin marka maadaama aanu lahayn WhatsApp waxaan isku dayaynaa insha Allah tacaala WhatsApp inaan ka create gareyno meeshaan website inaan isticmaalno so marka website aan isticmaalana laakiin haddii WhatsApp ugu xiran yahay WhatsApp-ka markaas ku dhufsanaysaa kadib markaas wuxuu ku leeyahay page-ka markaas meesha ku dhufanaysaa so markaan daa fiirisid page ma dalba karno so marka waxaan ku tusaa marka process-ka inuu isku mid ka yahay lebis so waxaa ku dhufsatay markaas inta maalinta aad rabtid inaad bixisid waqtiga aad rabtid inaad macnaha ku bilaabato haddii markaas aad guryo xayisiinayso oo kale location-ka aad rabtay meesha aad rabtay kadibna waddanka aad rabtay inaad ku dhufatid
oo macnaha kan meesha aad markaas kuu saaran oo kaaga soo baxayo aad iska saartid. hadda kaba soo qaad Soomaaliya oo kale rabnay, so marka Soomaaliya ku dhufso da'da haddaa rabtid inaad iska bedeshid. So waa taqaanaa si campaign loo create gareeyo by now. waxaas maahan hadda waxaan ka hadlayno, waxaan rabaa bas inaan tuso laba mid oo midna ay tahay marka WhatsApp samaynaysid iyo qaabka rabtid inaad u samaysatid. So marka hadda waxaan joognaa meesha adsetkii adskan joognaa. So adsetka hadda magac ulama bixin, oo haddii aan ku laabano kale magac soo bixino oo aan rabno kale guryaha oo kale bixin karnaa guryo, oo macnaha guryo aan target gareynayno iyo da'dii aan target gareynayno, sidoo magaca loola baxay waxaas waa taqaanaa by now. So kan waxaan rabaa bis cashirka inuu ahaado haddii traffic aad samaynaysid iyo qaabka aad u samaynaysid iyo macnaha qaabka ugu fudud oo loo sameeyo iyo. So hadda waxaan sameynaynaa Jabron. Okay, kadibna waxaad joogtaa single image markaad joogtid meeshan oo aad ka samaynaysid xayisiinta. haddii aad rabtid oo kale xayisiin oo macnaha horu samaysay meeshaas ka fiiri kartaa, xaggaana ku dhufsan kartaa existing post aad leedahay, kadibna markaas click xaggaas ku dhufsanaysaa postka aad raadinaysaa, meeshaas aad ka raadinaysaa, kadibna meeshaas ayaad ka soo saaraysaa haddii tahay post hore oo macnaha Facebook kugu jirtay iyo mid aad hore xayisiin u samaysay. marka hadda aniga new aan leenahay, kadib waxaan ku dhufanaynaa media marka ku dhufano video ama image marka rabna dalbanaynaa. So haddii video aan ku dhufano hal video meesha noogu jiro oo hadda hore wax ku samaynay, ku dhufso kadibna kusii dhufso. So markaas haddii marka hadda meeshan aan joogno WhatsAppka, meeshan website-kan ugu qoranto kale WhatsApp noo halay, kadib markaas xayisiintaadii wixii aad rabtay oo dhan ay meesha ku qor lahayd, maadaama kana uu WhatsApp yahay website waxaas ma baanaleyn. kadibna waxaa leedahay publish, intaas unbaad samayn lahayd, wax kale oo weyn ma samaynaysid. So waa taqaanaa si loo create gareeyo, waa taqaanaa sida adhowti markii oo 24 hours iyo 48 hours ay socoto daatada loo akhriyo oo loo fahmo, oo xayisiinta haddii lacag kugu khasaarinayso iyo haddii macnaha lacag ayna macnaha badan ay kugu kacaynin, waxaas oo dhan waa taqaanaa si loo sameeyo. marka cashirkan waa cashirka aan ugu talagalay haddii aad rabtid inaad samaysatid WhatsApp iyo waxaas in aad macnaha ka faa'iidaysatid. cashirka ku xiga doona wuxuu noqonaa haddii aad rabtid inaad samaysatid carousel ads, wax loo yaqaano carousel ads-kan waxa waaye cashiro oo iskugu jiro in macnaha bigjiradii iyo qaabkii waxaas kugu xiri lahayd iyo waxaas oo dhan inaan u hadalno. marka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.